الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad salaamayaa dadka halkan isugu yimiday kala yimiday deegaano kala duwan oo degmada Baki ka tirsan. Maanta halkan waxaan u joognaa bisha December 19keeda inaan xoolo wixii Ilaahay nagu soo dhiibay aanu qaybino anagoo Amuud Foundation dadkii ay saameysay duufaantii sagar oo runtii meelo horena aan ka soo qaybino ay kamid gargaara oo ay kamid ahayd carwareen iyo dhulka raacsan ee loo yaqaano Yubalkeen. maanta markaa wax weyn deegaan kale oo ka tirsan degmada Baki dad kala duwan oo markaa wax weyn dadkii ugu baahida badnaaya ee xoolahooda Ilaahay wax bixiyay intii badnayd ay ku tagtay halkan maanta taagan. waxaan rabnaa insha Allah taala inaan u qaybino 300 neef oo aan ugu talagalnay wax weyn 30 qoys oo kamid ah dadkaasi oo qoyskii wala siin doona wax weyn 10 neef. marka maanta halka waxa inala jooga oo Ilaahay xamdigiisa gudoomiyaha hay'adda Amuud Foundation ama barisankeeda Maxamed Faarax Xigaal oo runtii kii hore ka qayb galay kana maanta ka qayb galaya iyo dadkii insha Allah taala ay qaadan lahaa iyo odayaashii ay kamid yihiin Sandheeri iyo halka maanta ayaa lagu dhan yahay. بعد سلامتا إسلام كان نقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهد علينا الله سبحانه وتعالى وإسكوجان كان مانتا كان مرجع وحي عمود فاونديشن لو سو ديبي ددك مسلمين تا محسنين تا نورث أمريكا ما وقوي أمريكا يسو ديبان ولا له هجي كتب على سنا دوفان كي ساجر عمود أي آدي أدوق قريب قادتي ددك hay-adii ugu horeeyay ee gaarsiiyay wax raashina ay kamid ahayd imikana ay tahay markii saddexaad ee Amuud ka qaybiso xoolo deegaanka Baki ilaa gargaara. marka waxa aan rabnaa insha Allah in doorta number 1 Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo duceysaan meeshii laga soo qaaday. waxaan in farayaa fariina hadaad ininku isku nixi weydaan waxa la yiri 10kii family ugu dhibaatay 30kii family ugu dhibaataysnaa deegaankaasi ilaa iyo dilo hoosteeda ilaa iyo xaqii xeebaha dadkii deegaankan deganaayeen markii hore la gaadhin inaan gaarsiino waan soo xulana waxaan 30 qof ee ugu dhibaataysan ee ugu daran keenan laakiin hadaad aragtaan qof inaga dhibaataysan oo wax u baahan idinkuna caawisaan hadaad idinku isku nixi weydaan cidina inay ximayso ولا عيد با مريكان نيغايما ولا عيد با عرب نيغايما ولا عيد با بورما نيغايما inaad ininku isku naxdaan midda kalena Ilaahay isku xidhaan Allah subhanahu wa ta'ala ba baahida in haysatay in kortimiday inaga qaadi kara Ilaahayna isku xidhaan adnoona soo duceysaan marka labaad ummadda muslimiinta aan ka keenay ee aan niri inima yaqaanaan ciidatiin ma garanayaan waxay nigu soo dhiibeen Ilaahay wajigii wax dhaafsiisan oo inaga rabaana ma jirto u soo duceeyo dad bukaa jira dad caruur la jira marka inay u soo duceeysan masaakiintayada yaryar ee meelaha ordasana nagu soo duceeyo waxaan mahad u celinayaa marka saddexaad duqeyda oo kamid yahay degmada Baki iyo odayaasha soo qaban qaabiyay dadkan soo xulay العالمين الثناء لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta bisha December tahay 19 sidii horeba loo soo sheegay 2018 halkan Amuud Foundation ba ugu qaybinaysa 300 neef oo min 10 qofkiiba la siinay 30 qoys. Ilaahay ka jazaaysiyo amirkooga iyo caafimaadkooga Allah ugu barakeeyo iyaga iyo cidii u soo dhiibtayba Allah u barakeeyo caafimaadkana Allah u barakeeyo sida uu gudoomiyaha foundation sheegay waxaan ugu ducaynaynaa qofka muraadkiisu maan ugu ducaynaynaa Ilaahay halkay ka soo saarayna ha uu galiyo maaragtay wax ka khayr badan Allah ha ku galiyo iyaga iyo cidii ay ka soo qaadeen foundation iyo cidii ka soo qaadeen ba Allah barakeeyo kuwa la siinayna Allah u barakeeyo waxa kale oo ku daraya tsunami sagar intii ay dhacday halka imika dadkaasi ay ka yimaadeen geedqsi iyo buudiyana waaxdaad gobolka degmada Baki qoladii u horeysay xoolo u qaybisay weeyaan ama dawladda ahaato ama hay'ad ahaato raashina cidi iyagunba ama hal mar bay u geeyeen iyaguna qor kale oo u geysay xataa ma jiraan waxaan leenahay dadka kale sida Amuud Foundation ha ugu daydaano dadka walaalooga haday dawlad tahay iyo haday ayda tahayba waa dadkan ha soo eegaan hay-aduna meel qurun bay gobolka yaacaan dawladuna meel un bay yaacdaa waxa moodaabada halkan dadkan ay ka yimaadeen inay dawladda gobolka inay dawladda Soomaaliland ma ka tirsaneen la iska iloobaad moodaa waxaan leenahay cidii maaragtay sidaan horeba soo sheegnay soo bixisana Allah barakeeyo caafimaadka
كأبدك كحنوسنا أبدك الله عافيه كان أبد لهنا أبدك الله سيو كإلهي كان جنتنا الله كجيو إن شاء الله بإذن الله الكريم أجانا وحنينا يكون الله سيني ولله كبقاه أنت قاعدتاي حولها أنا إبننا كنا انتفاع حد الله يراه كل كهاية فوديشن عمود فوديشن حولها نوك هنتي ما حد يعني وقم نقينا الله نو بركة يعني أنا كل كحوله أن تدكي كل عدي طوفان كل عدي وحرق نوجي متمشرو إمكياتنا أنت وانو كم حد نقينا أنا الله نو بركة إذن كان إلهي هيدن كسجسايسيو وخير الله ينسي عد نوك هنتي الله بركة يعني لين هاي عدنا إنه دقوق هذا النينا وانو كفر حسنا هاي مانتا آديات بانو كفر حسنا عد نوك هنتينا آديات بانو كم حد نقينا عدي نوك هنتي حولها وان حد نقينا annaga oo duufaantiina saamaysay dadka walaalaha ayayna soo tabay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana halkii ay ka soo qaadeen Allah u barakeeyo annagana Allah noo barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa walaalaha iyagana soo tabay ee noo soo diray waxa ilaahayna ha noo wada barakeeyo iyagii annagaba aniga la yiraahdo indho nuur Umar Caatayo oo kamida beelahan maanta loogu deeqay dadkii soo xulay dadkana kamida waxaan halkan ka jeedinayaa oo salaamaya madaxda heer qaran ee hay'adda Amuud Foundation iyo kuwa hal abuurka lahaa iyo kuwa jeebka kala soo baxay adduunka aakhiriya adduunka ba wala horumarsadaa ninka aakhirada horumarsadaa hadduu walaalihii jeebkiisa u fidiyo uu xusiyo u cibaadaysta aakhira uu horumarsaday adduunkana uu horumarsadayo taa qarankii bay wax tartay hay'addu intaas oo qoys markay kor u soo qaaday qaranka Soomaaliland bay wax tareen dad bay wax tareen iyo shakhsi bay wax tareen ilaahay ba mahadnaq leh qoladaasi kuwii hal abuurka lahaa iyo kuwii asamsiga sameeyay ee sahanka sameeyay ee baahida soo arkay iyo kuwii jeeb kala soo baxay baan u mahadnaqaynaa Amuud si gaara ayay noogu suntan tahay sida odayga horeba sheegay waa markii aafada dabiiciga ee ay dhacday duufaanta asagal hay'adii noogu horeysay raashin dadkan u qaybisay hayd waayo waxa lagu sheegay waxa taabatad ka garooragto Amuud markii la yiri dadku aad bay u fahmeen waayo waa raashinkay keentay oo hore ula xidhiidhay maantana waxay noogu dartay inay dhaqaale qoys nagu kabto kor noogu qaadade oo dadku ay ka xusuus badan yihiin Amuud Foundation marka la yiraahdo jawaabtii ugu horeysay duufaantii sagal jawaabteeda bixisay Amuud si gaar ah noo xusan tahay maantana mar labaadna waan u mahadnaqanaa ilaahay baa mahadnaq leh waxaan leenahay hadaalina cid kasto islaamina waa nala mid meel kasto baahidu ka jirtana kuwa gaadha Allah idinka yeelo kuwa soo bixiye jeebka hal abuurka lahaa iyo kuwa jeebka soo bixiyana mahad baan u naqanaa ilaahay baana mahad leh waxaan leenahay hadaalina wada wax badan bay noo qabiyaa horena way noo soconanaa